أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. waxaan hadda maanta halkan usoo fariistan codsanayaa waxay tahay in ilaahay subxaana watacaala maalintuu iga oofsado oo kolley dadna waa iga dambeyn doonaan dadna waa iga horeyn doonaan wax iska caadiya laakiin anigu waxa weeyaan waxaan codsanayaa maalintii ilaahay i oofsado ee ajashaydu dhammaato ee aan dhinto inaan wax qabri alle iyo qodin inaan lay aasin. خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ay ka qosayn karta arrintan runtii anigu ma garan karo hadda mid ii cabiran ma aha dhinaca diinta weli kuma eegin laakiin dhakhaatiir badan baan la xiriiray arrintan macnaha waxaa ka suurtageli karaa waxaa ka macquulka ah siday u dhici karto waxa weeyaan runtii inkastoo dhakhtarkii ugu dambeeyey runtii uu iniyad jabiyey oo igu yiri adiga waxaad ka baqaysaa qabriga iyo waxaad ka baqaysaa ruux xabaalo laakiin isagu siduu ii sheegay in isagu maxaa la yiraahdaa uu saxiixay markuu isagu dhinto in la gubi doono subxaanallah marka aniga hadda fikradeydu waxay tahay iyadoon wax diin ah meesheeda loogu tegin oo la ixtiraamayo kuma fiiha nuciidukum minha nukhrijukum taaratan ukhraa allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay dhulka idinka abuuray mar labaad dhulka ayaad idin celin doonaa mar kalena waa laga soo saari doonaa yowmul xisaab ah aqooti fil caqiida hadalka ka soo yeeray gabadha ma ahan mid shariicada waafaqsan dhammaanteen waxaa naga saaray inaan ka dhiirino mas-uuliyadeena waayo diintu waxay tiri aniga fikirkayga waa diin ma ahan diintu haddaba ma qabto waxaa la ogol yahay oo keliya qofka 3 maalmood banaanka in la dhigaa ay dadka dhan ku tusaale qaataan waa kuwa dunuubta galeen macsiyada waaweyn sida inay dadka jidka u galaan oo umada dhibaateeyaan kuwa qaadcu dariiqa hadii la qabto la dilo 3 maalmood ayaa geed la saaraa la salbin si dadku u waantoobaan ayada fikirkeeda hadii ay tahay ma ahan diin qof walba muslimana waxa laga rabaa allah subhanahu wa ta'ala wuxuu u jideeyay inuu raaco walaasha muslimada ahay ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo laabo waayo qabrigu waa manzilkii labaad aynu degayno waa guriga ugu horeeya aakhiro ayaan degayno qof nasiib la ayaa helo oo ehelkiisina dhaqaan oo karfanaan qabri geliyaan adiga hadaba nasiibka ilaahay ku siinayo ha iska deedin ilaahina subhanahu wa ta'ala u tala saaro dunuubta aad ku jirtaan hadda nafa kugu jirta dib ugu soo laabo allah subhanahu wa ta'ala wa rabbul izza dunuubta oo dhan ayuu dhaafaa shaydaan mahma oo ku fogeeya rabbul izza wuxuu leeyahay يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخنضوا من رحمة الله قبره وقرق لباد منزل كاها كجلين قرق آخرة أول منازل آخرة ينبي كتر ما عليه الصلاة والسلام قبره وهو يد اللباد ونعلو شيدان قلين ما أنت وقدر الله وقرصانا لكن ما الأيادع دونتو حبالها انقلي دونه ولا ليال الله سبحانه وتعالى قاتمنا نوتوسيو gabadhana fartiinta ay gaarsiiya hadii ay afkeeda ka tiri dib ha uga laabato waayo dad badan ayaa ku fidnoobi karo dhigi karo sida deeqo kale jidka la dhigo ama geedaha la saaro waa fikir cawaannimo
qof diin la arrin uu ka hadlamaan walciyaadu billaah.